ururka gargaar oo ka mid ah ururada samafalka ah ee ka howlgala Buuhoodle ayaa maanta waxa uu deeq isugu jirta biyo iyo waliba agab kala hoyga ah waxa uu gaarsiiyay cisbitaalka dhexe ee Buuhoodle cisbitaalkaas oo haatan ay yeelaan qayb ka mid ah dadka uu soo hortay cudurka shuban biyoodka dhawaan ka dilaacay magaalada Buuhoodle kaasoo dad fara badan ay u geeriyoodeen Sheikh Cabdullaahi Jaamac Haruun oo madaxka ururka Sheikh Cabdullaahi Jaamac Haruun oo ka mid ah mas'uuliyiinta ururka gargaar ayaa deeqda ku wareejiyay guddiga caafimaadka iyo guddiga cisbitaalka dhexe ee Buuhoodle sidoo kale isnaalka waxa ka hadlay Cabdi Maxamed Cabdulle oo ku hadlayay bahda caafimaadka Buuhoodle iyo qaar ka mid ah culimo iyo wali wax garad gargaar ahaan marka saaka booqashan ku nimi xaalado badan oo xasaasi aan ku aragnay oo dadkaas u baahan yihiin wax laga qabto marka isxilqaan baan sameynay isxilqaanka aan sameynay baan soo gaarsiinay maanta wax walaalka ku keenay haba yaraatee walaalka Soomaaliya wuxuu ku keenay waa macaan mana ma daba socoto dib ma daba socdo waa macaan wax badan oo gacan shay ku keentay ka macaan yihiin marka waxaan rabnaa inaan guddida gurmadka caafimaadka ku wareejino iyo culimada caafimaadka deeqdaas aan sidnay waxay ka kooban tahay konton kartoon biyo ah 9 xabo oo makakada la goglada ah 9 barkimo waan ugu talagalay qofku inuu deemaada u buko barkintiisa iyo gogoshiisa wada helo biidna ilaahay tii u horeysay noqon tii u dambeysay noqon mayso tii u horeysay waxaan diyaar u nahay meel kale kastaan wax ka heli karo jeefkayga insha Allah in balaaran u dirana ururka gargaar kaas oo noo keenay deeqdan iyadoo ay waliba deeqdooda ku bees garaysan tahay baahiyo looga baahnaa cisbitaalka dhexe ee Central MCH-ka ururka gargaar way mahadsan yihiin insha Allah waxay noqonaysaa tii u horeysay tii u dambeysana noqonayso gargaar magaca ay la baxeen waxaan rajaynaynaa in dadkooda walaalahooda ay u soo gudbiyaan ka gargaar ahaan mar labaad iyo mar saddexaad aan guddida caafimaadka iyo hay'adda saasba waan u mahad celinaynaa gargaar bahda caafimaadka guddida caafimaadka deegaanka saxaafadda iyo ka soo qaybgalayaasha barnaamijkan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan ma aha markii koobaad ee ururka gargaar ay wax ka qabtaan arrimaha deegaanka waxaan leenahay ilaahay khayr ha idin siiyo meeshaad ka soo saarteenna wax ka fiican ilaahay ha idinku bedelo waxaan aad u salaamayaa oo u mahadnaqayaa ilaahay mahad leh ururka gargaar oo deeqdan dadka walaalahooda soo gaarsiiyay way ku mahadsan yihiin inta dhimanna dadka kala la midana aanu sheegi doonaa waxaanu doonaynaa sida inay iyaguna ugu baraarugaan walaalahood haddii aan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du runtii waxaa ururka samafalka ee gargaar ay keeneen cisbitaalka dhexe ee deeqda la magacaabay 50 kartoon biyo 9 gogol makeekiyada iyo 9 barkimo waxaan leenahay ilaahay khayr idinku bedelo idinka iyo cid kastoo ka qayb qaadatayba waxaan kale oo u sheegayaa dadka Soomaaliyeed ee danqashada iyo maaragtay naxariistu jirkooda ku jirto in culays aad u ballaaran uu ka jiro magaaladan Al Ismaan Su'aal Dhagjar wararka telefishinka caalamiga Ismaaciil News magaalada Buuhoodle